عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ودلحانتي بوكسو دوادا وركي تلفزيون كمدة حبرنامج بولشة تي في هذا وكالات كداوتان حارتي مقالة هرقيسا وركا عاو حيدلا سعودين سانيغو هودا جردا qodobadayna warka ugu door korona waxa kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraal Duur ayaa maanta golaha wakiilada uga xog waramay xaaladda nabadgelyo ee dalku maanta marayo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo madaxda urur siyaasadeedka rays ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boorame madaxweynaha dalka Iiraan Maxamuud Axmed Najaad ayaa sheegay in dhawaan ay ku dhawaaqi doonto dawladiisaasi in ay dhamaystirmeen hubkii nukliyeerka ah ee dalkaas laga soo saarayay dawladda Nigeria ayaa soo bandhigtay ninkii ka dambeeyay qaraxii ka dhacay dalkaasi daawada kuwaas waxaan qaar ka mid ah qodobada warkaan idinku haynay mikii haatan waxaad ku soo dhawaataan warkeeni oo faahfaahsan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga udub Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo faafahinta warkaasi waxa magaaladaasi nooga soo diray wariyahayaga Axmed Wali Ali waxa maanta si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga udub Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin iyo wafdi balaaran hogaaminayo waxaana duleedka magaalada kaga hortagay taageerayaal aad u tiro badan oo ku labisan calanka astaanta oo xisbiga udub iyagoo taageerayaashaas halkaas ka tirinayay geerarro ay ku soo dhaweynayaan wafdiga xisbiga udub waxaana gudoomiyaha iyo wafdigiisu isla halkaas mid ugu gacan qaadeen taageerayaashii intaas kadibna markii ay soo gaareen gudaha magaalada Ceerigaabo waxa khudbad dheer u jeediyay taageerayaasha gudoomiye ku-xigeenka xisbiga udub Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo kala hadlay fagaaraha xafiiska xisbiga udub طبعا هذا يجر markan qaadayo aan qaadayno kaambeyn udub waxay ka bilowdaa Ceerigaabo sababtoo ah waa dhulkii awooyaasha siyaasan u dooranay had iyo jeer haday udub ka cayso inay ka soo kacdo Sanaag dibadna u socoto galbeed taasna waxa dheertihiin gobolada kale Ceerigaabo waa lagu mahad celinayna soo dhaweyntiina diiran ee aan lagu aqoon gobolada kale hadaan ka waramo safarkan aan u soo kicitinay waa laba arrin weeye waa ogtihiin in la furay ururo fara badan waa ogtihiin inay soo gashay doorashadii deegaanka labadaas shay ayaa horta loo kaambeynka lagu jiraa inuu xisbigu dib u soo noqdo oo uu noqdo xisbi bahweyna oo tamariya boqolaal sannadood tamariya inuu doorto xildhibaanadii deegaanka oo ah kuwa soo saaraya xisbiga waxaan doonaynaa xubnaha deegaanka ee udub soo xulanayso inay noqdaan niman hormooda inay noqdaan hormoodkii Sanaag oo kuwa qaadaya ujeedada u weyn waa intaas ee maanta aan u soo baxnay in xisbigii la qabyo tiro in la qabyo tiro golihiisii dhexe in la qabyo tiro wixii ka dhiman oo dhan ilaa in hore loo wado sababtoo ah maanta waxaa lagu furay ururo kale oo fara badan saddex xisbi waxaa lagu furay shay toban lagu furay waxaa la Ceerigaabo sanadkan maanta waxba iska aqrinina sidii udub ay soo noqon lahayd saaxadda ugu soo noqon lahayd ay uga qayb gali lahayd tartanka dambe ana u soo noqon lahayd xisbiga udub muddo dheer buu ka soo hogaaminayay waqtiga laguma hungoobin gasiinkuna ma go'in xisbiga udub wuxuu ahaa kii nabadgelyo soo celiyay wadanka Axmed Wali Ali telefishinka caalamiga ee Bulsho TV magaalada madaxda urur siyaasadeedka rays oo kamid ah urur siyaasadeedka dhawaan laga dhawaaqay Soomaaliland ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Boorame faafahinta warkaasi waxa Boorame nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Fataax Axmed
magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nowdal waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay madaxda urur siyaasadeedka Rays oo kamid ah ururada siyaasadeed ee dhawaan lagaga dhawaaqay Somaliland. Taageerayaal fara badan oo ay wataan baabuur aad u tiro badan ayaa waxay madaxdan kaga hortageen duleedka magaalada Boorama iyagoo u soo galbiyay gudaha magaalada Boorama iyadoo madaxdan ay Boorama maanta ka furteen xafiiska ururkooda ee gudaha magaalada Boorama. madaxdan ka tirsan urur siyaasadeedka Rays markii ay soo gaareen magaalada Boorama waxay hoteelka Mana Guest House ee magaalada Boorama kulan kula yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana ugu horeen madashan ka hadlay wasiirkii hore cadaaladda Somaliland Mudane Aadan Cilmi Dhoolayare wuxuuna falanqeeyay ujeedada loo aasaasay urur siyaasadeedkan Rays isagoo hoosta ka xariiqay inuu ururkan u taagan yahay horumarka iyo ka shaqaynta nabadda Somaliland. ay taagan tahay ama ururka Rays uu ka mid yahay dadka qoraal ugu booriyay kuna dooray kuna qarciyay shacabweynaha in ay dan weyneen ugu jirto shirka haddii la haydhaho lagu qaban doono waddanka Britain ama Ingiriiska haddii la haydhaho masiibtaro aad iyo aad baan uga xunahay dagaalada ka socda gobolada bari inaba aad iyo aad ugu wasiiraysan oo dadkeena ay ku dhimanayaan dhinac walba sidaa darteed xukuumaddan waxaan ku baaqaynaa inay si ficil ah ama action ah ay ugu dhaqaaqdo in ay nabadda ama gogasha ay ku ballan qaaday lagu soo fadhiisto nabadgelyada si laga horraysiiyo wax walba oo kastaba. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka ururkan Rays Mudane Saleebaan Barqad Qalombi oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu hadalo dardaaran u jeediyay bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka Somaliland. waxa weeyaan waxa soo dhow golay deegaanada soo dhow doorashooyinka soo dhow waxaan aaminsanahay in dad badan oo halkan joogay kuwa maqaliba ay ururka Rays oo codeyn doona haddii la taasoo ay ka ugu dambeyntii waxaa madashan la hadlay dadweynihii ka soo qayb galay gudoomiyaha urur siyaasadeedkan Rays Xasan Maxamed Cali Gaafadi waxa uuna falanqeeyay ujeedada loo aasaasay urur siyaasadeedkan Rays. maantana ujeedadu waxa weeyaan in aan ugu dhimaadno inaanu calaamadii ururka dhalinyarada iyo shaqaalaha Rays ku soo gaarsiino gobolka Awdal degmada Boorama ee magaalada madaxda gobolka Awdal nabadgelyadu waa waxaynu ku canimaadnay waa waxaynu halkaa ku soo gaarnay waa waxaynu labada jeer isku doorannay waa waxaynu iminka doorashada taaganaynu ugu diyaargaroobayno waa mar walba in la adkeeyo nabadgelyada la adkeeyo nabadgelyo baa lagu helaa iyadaa degenaansho lagu helaa iyadaa caafimaad lagu helaa iyadaa horumar lagu helaa in la adkeeyo waxalaale wixii dhibaata gelinayana in laga hortago aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa. booqashadan maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nowdal ay ku yimaadeen madaxda urur siyaasadeedka Rays oo kamid ah ururada siyaasadeed ee dhawaan lagaga dhawaaqay Somaliland waxa uu noqonayaa tan iyo magacaabistiisa booqashadii ugu horeysay ku yimaadaan Boorama waxayna maanta gudaha Boorama kula kulmeen bulshada ku dhaqan magaalada Boorama iyagoo madaxdan urur siyaasadeedka Rays ka socday bulshada Boorama u soo bandhigay hamigooda siyaasadeed haddii ay ku guuleystaan doorashada Somaliland ka dhici doonta. Abdi Fattah Ahmed Bulsha TV magaalada Boorama. wararka caalamkan idinka haynana daawadayaal waxaa kamid ah madaxweynaha dalka Iran Maxamuud Axmed Najaad ayaa sheegay in dawladiisu ku dhawaaqi doonto in si rasmi ah uu dhameystirmay hubkii nukliyeerka ahaa. faafahinta warkaasi waxa inoo haya Cabdiraxmaan Isbatoore. madaxweynaha dalka Iran Maxamuud Axmed Najaad ayaa sheegay in dawladiisu guul ka soo hoysay dhanka nukliyeerka taasoo maalmaha soo socda si rasmi ah u shaaci doonta. madaxweynaha ayaa sheegay mar uu ka hadlayay sanad guuradii 300aad ee ka soo wareegtay xilligii ay xilka qabteen kacdoonka jamhuuriga islaamiga ah ee Iran kaas oo ka khudbadeynayay telefishinka dawladda ee Iran. madaxweynaha Najaad ayaa naqdiyay cunaqabateynta ay ku cadaadinayaan dawladaha reer galbeedku si ay Iran faraha uga qaado barnaamijka nukliyeerka waxaana ku adkaystay Najaad in aanay joojin xitaa haddii loo adeegsado awood isla markaana Iran aanay isdhiibeen buu yiri.
isagoo ka hadlay arrimaha nuclearka Iran waxa uu tilmaamay Najad in wadada qura ee Iran kula fadhiisanayso miiska wada hadallada in ay tahay Iran oo loo ictiraafo xaq ay u leedahay barnaamijka nuclearka dawladda Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku sii adkeysanaysa cunaqabateynta saaran Iran taasi oo gabi ahaanba lacagihii u yaalay Iran bangiyada dalkaas Mareykanka xayirtay isla markaana joojisay la tacaamulka bangiga dhexe ee Iran dhanka midowga Yurub ayaa isna sanadkii la soo dhaafay shaaciyay inuu joojiyay sanadkan lagu guda jiro ka iibsiga shidaalka dalka Iran waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay xukuumadda Maxamuud Axmed Najad ay soo saaraan hubka nuclearka oo khubarada qaar aaminsan yihiin in Iran u dhameystiran yahay dawladda Nigeria ayaa soo bandhigtay ninkii ka dambeeyay qaraxii ka dhacay dalkaasi fafaarinta warkaasi waxay noo hayay Maxamuud Askar booliska dalka Nigeria ayaa shaaciyay inay qabteen Sokoto ninkii ka dambeeyay qaraxii lala beegsaday kiniisada ku taalo waqooyiga dalka Nigeria waqti loo dabaaldegay ciidda Kristaanka oo ay ku nafwaayeen dad gaadhay 44 qof ciidamada nabadgelyada dalkaasi ayaa hore u qabtay Sokoto iyo 6 nin oo kale kuwaas oo lagu tuhunsanaa inay lug ku leeyihiin qorshayaal lagu rabay inay khaarijiyaan taliyaha booliska dalka Nigeria iyagoo xilliga ka baxsaday jeel lagu xiray magaalada Abuja Sokoto ayaa lagu daba jiray mudaba kaas oo ku xidhnaa kooxda mayalka adag ee Boko Haram oo qarxisay kiniisada ku taala magaalada Mudala oo u dhow caasimada Abuja Decembertii la soo dhaafay kooxda Boko Haram ayaa jimcihii shalay toola shaacisay inay heshiis nabadgelyo la galayso xukuumadda dalka Nigeria taasoo shaki ku abuurtay dadweynaha dalkaasi kadib markii kooxda mayalka adag ee Boko Haram ay muddooyinkii ugu dambeysay qaraxyo isdaba jooga ka fulinaysay gudaha dalka Nigeria dalka Masarna waxa ka socda mudaharaadyo isugu soo bax lagu dalbanayo in xukuumadda militariga ee dalkaasi ku wareejiso xukuumad rayida fafaarinta warkaasi waxay noo hayay Cabdiraxmaan Ilkacase xilligii loo dabaaldegayay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay xilligii uu ka degay kursiga madaxweyne Xusni Mubaarak ayaa waxa kumanaanka shacabka reer Masar ayaa isku soo baxyo ka sameynaya wasaaradda gaashaandhigga kuwaas oo ku dalbanaya in golaha militariga dalkaasi ka dego xukuumadda kuna wareejiyaan rayidka dalkaasi odayaasha ayaa ku dhawaaqaya in la dhameystiro kacdoonkii isla markaana la gaarsiiyo yoolkiisa waxayna ku heshiiyeen in qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalkaasi ay taageereen isku soo baxyada halka badarka ururada siyaasadda dalkaasina ka dhaga adeegeen mudaharaadayaasha iyo shaqo joojinta ay dalbanayaan mudaharaadayaashu rabshadihii ka soo ifbaxayay dalkaasi inuu ku sii kacayo kasoo ifbaxayay dalkaasi intii uu socday ayaa waxaa ku dhintay 800 oo qof si kastaba ha ahaatee mawjadaha mudaharaadayaasha dalkaasi ka socda ayaa sii badanaya saacadaha soo socda kuwaasoo militariga dalkaasi iyo ciidanka nabadgelyaduba u diyaar yihiin sidii ay iskaga caabin lahaayeen rabshadaha daawadeen intaas waxaa naga eeg wixii war dalka gudihiisa iyo dibadiisa baan idinka hayna warka caawa waxay idila socodsiinaysaa anigoo hooda jirda warkan war lamid inta dib hawada ugu kulmayna aniga iyo intii kala qayb gashay dhammaantii waxaan idinkaga teginaa fi amaanillah